waan heesayaayo sanad waliba hooyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waan heesayaayo hadhu lagu xasuustaa kii noo hagaage noqolo haweenyahay kii noo hagaage noqolo haweenyahay. aadanuhu asalkiisu wuxuu ahaa noole bulshad ku nool baadiyaha. wuxuu ahaa noole dhaqmaa, tarmaa, misna wax taraa deegaanka si uu jiritaankiisa u joogteeyaa una tabcado beeraha. wuxuu ku qasbanaaday inuu guryo ka samaysto webiyada hareerahooda si uu ganacsi ballaaran u samaystana wuxuu reerihiisa ku furay jiinka xeebta. waxaa ku xiga dabaqyo dhaadheer oo la dhiso, dadkii oo kala hayaamay, iyo in qof waliba uu ku noolaado duni gaar ah isagoo care edeeganta moobilkiisa dhex damaashaadaya. si nasiib xumo sida uu Dostoevsky yiriba, aadanuhu waa noole la qabsado wax waliba oo durbadiiba waa uu la qabsada nolosha cusub. si waxaa ka dhammaaday dhadhankii iyo farxaddii uu ka heli jiray taleefanka. waxuuna noqday mid hamuun u qabo deegaanka iyo dhexgalka dadka. waxaa taas caddayn inoogu filan muuqaalada YouTube-ka ku jira ee ku saabsan jabaqda roobka. waa muuqaalada ugu badan ee la daawadaa. muuqaalada qaar xitaa waxaa la daawaday 238 milyan oo jeer. hadda ogow, waa 238 milyan oo jeer. waa tiro aad u badan. maaha muusig la dhegaysanayo amaba cashir nololeed, xitaa maaha cod roob oo sax ah, ee waa hilib dooro oo la shiilayo oo loo editin gareeyay sida roobka oo kale. sidaas si la mid ah, maadaama aan nahay noole bulsheed, waxaan u baahannahay mararka qaar inaan qoys ahaan meel isugu imaanno, waqti wada qaadano, misena aan isxaal waraysanno. haatana iyadoo arrinkaasi laga duulayo ayay guddoomiyaha iyo guddiga ardada Kenya waxay maalintii Sabtiga ahayd inoo sameeyeen kulan dalxiiseed gaaban. waxaana si wada jir ugu soo caweynay beerta Karatai. bismillahir rahmaanir rahiim. anigoo ah Cabdishabaar Axmed Salaad, sidoo kale ah guddoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Kenya. ilaahay baan mahad u celinaynaa marka koowaad. marka labaad waxaan u mahad celinayaa Caawiyo Tube iyo asxaabtiisa oo nagu soo booqday anagoo maanta halka ku qaadanay qayb ka mid ah waqtiyada farxadda. sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa ardaydayda qaaliga ah maanta soo ajiibitaankii soo ajiibeen xafladan aanu qaban qaabinaynay iyo picnican kaasoo daba socda kuwii hore aanu hore u soo qabanay oo ardayda ku kulminaynay wax qabadyadoodana teamkan ku soo bandhigaynay. ardayda aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay Ustaad Cumar Faaruq oo ah xogayaha guud ee guddiga. bismillaah, waran waxa mahad isku naatay Ilaahay oo noo suurtageliyay kasoo qaybgalka aan kasoo qaybgalnay xafladan qiimaha badan oo lagu maamuusay qalinjabiyaasha ardayda sanadkan ee magaalada Kenya sanad dugsiyeedka 2025-2026. mahad gaar waxay u sugnaatay qabanqaabiyaasha xafladan oo ugu horeeya guddoomiyaha ardayda Kenya iyo tiimkiisa. aniga oo ku hadlay magaca guddiga halkan waxaa mahad celin balaaran ugu diinaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha ardayda Kenya. waxaana sidoo kale halkan mahad celin balaaran ugu diinaya Caawiyo Tube nagala qayb qaatay xafladan qiimaha badneed. Ustaad Maxamed Cabdikariim isagana wuxuu hambali iyo bogaadin u diray ardada ka qalin jabisa sanadkani jaamacadaha ku yaala gobolka Kenya. bismillahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Maxamed Cabdikariim Maxamuud. waxaan ku hadlayaa dhammaan ardayda sanadkan 2026 ka qalin jabiyeen jaamacadaha gobolka Kenya qaybaheeda kala duwan sida masterka, bachelorka iyo PhD-ga. marka ugu horeysa waxaan mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala oo caafimaad inuu kulmiyay madashan sharafta badan iyo farxadda badan. marka xigta waxaan u mahad celinayaa ardayda guddiga Kenya shaqada adag iyo juhdiga ay geliyeen barnaamijkana isku keenida ardayda dhisidda walaalnimada. waxaan dhammaan ardayda ugu mahad celinaynaa kasoo qaybgalkooda iyo ajiibida madashan ay ajiibeen. waxaan leenahay dhammaantood jazaakumullahu khayr aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina. Ustaad Cabdiqaadir ayaa isna inala wadaagay dareenkiisa ku aadan madasha. magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Salaad. runtii maanta halkan waxaanu ku qabsanay picnic-gaas oo ujeedadiisu ahayd dhexgalka ardayda Soomaaliyeed ee Kenya oo magaalada Kenya ee Turkiga wax ka barata. runtii barnaamijka ardayda oo loo qaban jiray oo si sanadlaha u dhaca marka la gaaro xilliga qababaha laga soo baxo.
runtii barnaamijkaana waxaa looga dan lahaa runtii in ardaydu ay dhexgalaan runtii maanta joogna joog waxaa aad u wanaagsan oo joog roobaad la maadaama aynu dabcan aynu ku jirno xilli roobaad oo hadeer aynu may ku jirno aad u maasantiin dhab ahaantii noloshu waa hardan hal adeeg iyo hubanti socod qof waliba oo goobta joogay misana ka soo qayb gala kulankani waxa uu dareemay inuu qayb qoyskiisa ka mid ahi uu la joogo waayo waxaa jira walaalo badan oo aynan hooyooyinkeenu dhalin si weliba aan garab iyo qoys isugu noqonno haddana weli waxaana la buuxi karin hilowga loo qabo hooyo macaan waxaana codkiisa macaan inagu xasuusiyey abwaan ustaad maxamed cabdiraxmaan hooyoy la'aanta adduunyada hubaashi habeenkama baxdeene iftiin lama heleene dadka uma hayaameen dayaxeega joogo sida had ma fuule xidigawdka lulato haw laguma gaadhin hubka laguma tuure cirka idhirka muuqdo waxaad agaysiyo ushanimadu haysa helin toosan weligii ka hawaabi maaye helin toosan weligii ka hawaabi maaye hooyoy addoomo halkay maanta joogaan adiga horseede